gabdhaha Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan ma jecla in lagu qayliyo, ma jecla in muran lagula dhaqmo. Waxay jecel yihiin in si degan wax looga sheego. Gabar iyo ninkeeda ayaa waxay fiirsanayeen muxaadaro ayay telefoonkooda ka fiirsanayeen. Sheekh ayaa u muxaadareynayay, sheekhaas oo lahaa haddii ninka naagtiisa ay adduunka ku dhibaatayso wuxuu mudan doonaa markuu dhinto inuu galo janno. meeshaas aad idinku celiyo. haddii ninka naagtiisa adduunka ay ku dhibto oo ay ku rafaadayso oo isagana uu sabro, ninkaas wuxuu noqon doonaa ahlul janno. gabadhii markay hadalkaas sheekha ka dhageysatay oo ninkiina uu dhageystay, gabadhii go'aan ayay qaadatay. go'aankaas oo ah habeenkii markay wada seexdeen oo aroortii ay soo kaceen, gabadhii waxay samaysay in cuntadii quraacda ahayd iyo wixii kale inay soo diyaarisay ayay waxay u keentay isagoo jiifa. ayay waxay ku tiri baby, cuntada waa diyaar ee cun. ninkii inuu yaabay ayuu dhahay walaalay, mar hore waxaan iima samayn jirin, waa ogeyd waad dhibi jirtay, cunto si fiican iima samayn jirin, hadirtaan maxaa kuu kalifay inaad yaa cuntada fadhigayga aad igu keentid? intay qosashay ayay waxay tiri waxaad rabtaa miyaa inaad aniga darteeda jannada ku gashid? ma dhici doonta ayay tiri maanta wixii ka dambeeya. yaa wax allaala waxaad rabtale kuu samayn karaa ma ogi. yaa darteeda janno kuma gelaysid, laakiinse adiga waxaad samaysatay ayaad naar iyo janno ku mutaysan doontaa. daawade, meesha waxaa kaaga muuqdo in gabdhaha si aan caadi ahayn degan wax looga sheego. haddaad muran iyo waxaad samaysidna baba rabaanba inay dhegaystaan. marka adiga i daawanaya haddaad xaas leedahay, si degan wax ugu sheeg. u daar waxyaalaha muxuu asiga ku saabsan xagga diinta say u dhegaysato oo ay muxuu asiga u qanacdo. ma aha inaad feri iyo haraanti wax ku fahansiisid. daawada, barnaamijka halkaan ila soo gaartay, waxaan kaa codsanayaa inaad share, like iyo comment barnaamijka bixisid si uu meel fog gaaro. anigana waxay tahay dhiirigelin. mahadsanidin. gabdhaha Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan ma jecla in lagu qayliyo, ma jecla in muran lagula dhaqmo. waxay jecel yihiin in si degan wax looga sheego. gabar iyo ninkeeda ayaa waxay fiirsanayeen muxaadaro ayay telefoonkooda ka fiirsanayeen. sheekh ayaa u muxaadareynayay, sheekhaas oo lahaa haddii